agaasinka geedi socodkii arrimaha xisbiga ee dawlad deegaanka Soomaalida mudane Suldaan Xasan oo shir jaraad xafiiskiisa ku qabtay ayaa warbaahinta kala hadlay arrimo dhowr ah isagoo arrimaha ka hadlayana waxa kamid ah hadaladiisii bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa inaan si kooban uga hadlo ujeedada aan shirkan jaraad saaka u qabanay kaasoo daba socda kulan aan shalay ku yeelanay hotelka la yiraahdo ZM ee ku yaala magaalada Jigjiga oo ay ku qabteen shirkaas xafiiska doorashooyinka qaranka Itoobiya laba xubnood oo ka socda xubnaha boordiga ee shanta u sareeya laba kamid ah shirkaas waxaa lagu la kulmay xafiiska doorashooyinka deegaanka Soomaalida oo anagu matalaynay xisbiyada siyaasadda ku loolamaya deegaanka ah ee shanta ah iyo shakhsiyaadka sida madaxa banaan u tartamaya gaar ahaan kuwa ka sugan caasimadda wada hadal iyo dood dheer kadib waxyaabo ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay intii anaga deegaanka Soomaalida xafiiska doorashooyinka ka khuseysay baan ka hadlayaa laba qodob bay ahayd labada qodob waxay ahayd inay ka cabanayeen musharaxiinta madaxa banaan goob doorashooyinka maamulka magaalada Jigjiga ka jira in ay maamulka ama kabineyga maamulka magaalada Jigjiga ay cadaadis ka sameeyaan isla markaana ay joogaan goob doorashooyinka iyagoo diiwaangelin iyo maxayda kormeer iyo warbixin ka sameeynaya talabaadna waxay ahayd in goob doorashooyinka meelaha qaar gaar ahaan qabaleega 9aad 12aad 17aad iyo 11aad laga bedelay goob doorashooyinkii meelihii loogu talagalay labada qodob anaga deegaan naga khuseeyay labadii qodob marka saaka markii waagu bariyay si aan uga jawaabno waxaan si degdeg ah ku tagay kormeer goobihii ay ka cawdeen musharaxiinta madaxa banaan iyo xisbiyada mucaaradku ee afarta qabale ku yaalay cabashada ku saabsan dhinaca goob doorashooyinka la bedelay goob doorashooyinku way jiraan laakiin meelahoodii waa laga bedelay waa run sababta looga bedelna waxay noqotay dhalinyartii meesha ku sugnayd oo meelahaas ka cawday maxay qorraxda iyo roobka jira iyo amni ahaanba inay halis ku tahay marka in goobta laga bedelo iyaga maamulka qabaliyada ka codsaday waana la bedelay goobihii lagu bedelina waa la dulgeeyay oo goobo marka hore kaga haboonaa zoonasha qabaliyada ahaba la geeyay taas waa qodob qoliyaha cawdayna waxa ku cawdeen goob doorashooyinka sanaaduuqooda meel kale la geeyay taas marka waxaan cadeynayaa sanaaduuqooda meel kale la geeynin waxa weyn ay jiraan zoonashana lagu bedelay goobo ka haboona waliba aan ku soo arkay saaka oo qodobka ku saabsan maamulku inay maxay ku hayaan kormeer joogto ah kullee anigu ma arag wixii aan arkay baan ka hadli karaa marka laga reebo qabaleega 9aad oo doorashadu markii ay diiwaangelintu socotay 3 maalmood anigoo kormeer iskay u socda aan ku arkay laba xubnood oo aan maamul ahayn laakiin aan ku tuhmay inay ka socdaan maamulka oo diiwaangelin ku sameeyay dadka kaarka soo qaatay ka sameeyay meel kamid ah qabaleega dhaxiisa automatically ciidankii baan amar siiyay meesha joogay waan qaaday gaarigaygan ku qaaday waxaan ku xidhay xabsiga ku yaala maamulka magaalada Jigjiga loo yaqaan Haabana baadhis baa ku socota waxaan farnay inay baadhistaas si qoto dheer u sameeyaan cid soo dirsatay iyo sababta diiwaangelinta u sameeyeen la baaro xogteedana si rasmi ah loo soo siiyo marka xogta ay soo siiyaan baadhistaas ay dhameystirantana maxkamad inaan geyno way qorshaayo intaas baan ku gabagabeynaya shirkayga jaraa'id wixii maxay ahayd dhibaato ee soo kordhay ee laga soo cawdo markasta waxaan diyaar u nahay anagu deegaan ahaan wixii aan awood u leenahay inkastoo awoodii hadda la weeqay deegaanka u lahaa wixii awoodayda inaan si degdeg ah oo sida tan oo kale 40 saac gudaheed uga jawaabno Fidin Harago warbaahinta RTN Jigjiga gacaliso waa ku salaam marrabay awal lacagti biilkii maanta lacagtaaga qiimo badnaa tani intaas sana ku dubaray maanta dad lacag hayn argaaga dhaafi macquul ma alxamdulillah ma hadskale yasar allah ila soo cusaan u sheega hal haji waxa way labadna ku toosii shaaftaan u ka rabaan marka xoogaho iyo dulqaad baar xalan ku hayaa ma kulli ma أخبار فرحة لهم كوا هاي ترى عنا أخبار فرحة لهم كوا هاي يشك هذا إذا ما هو حرت ولا عند أخبار فرحة لك وش أو كوجو ليش سامتين ها وحن كوجو ليش هنا أويا يقصد مرض ما برونيش وبتاعك كوجو ليش أنا كنت عندي دم بيجي ما برونيش أنا كنت هذا كبعد دجاج كنت دجاج بتاعك
lacagtan kalisa adiga haya farxadda ii sheeg anna waxaan ku guulaystay 10 garan oo dahaba shirkadda isgaarsiinta Samtel waxay kuu soo kordhisay ku shubo oo ku guulayso macmiil ku shubo kaarka hadalka ama internet Samtel si aad ugu guulaysato 10,000 oo hadiyado ay ka mid yihiin gawaariha Hyundai cusub bajaaj lacag iyo hadiyado kala badan